سلام الله صاحبيال إنس في عنتي نيان دين رجي سلام كجدال صاحبيال مقال كان يوحو بربلا وياهي فأنت مقال وجود عدك قري سويال كيف نادى حريم خليف عمر ولو قرنوجا مقال قرال كاسيو وقوان قليا مسوا صمد وقدقي فن مقالي وقشة كليا بريقة حرية بقوانا دينسو بريدينين إرياداسو كليا آيا بدوين تفنك الصومالي دا كون صوت دريق افتن بحاليغا كون لقون دونتا بدوين تا كون ساقال بقول كوبيا اللحدن كيوية سنتكو راديو هرقيسة قد دا كسعوتا ايو هقان كوي هاي عالي سقولا دون عربيد ايا امتحان كقاضا يا مقعيدا ايا لويدين ايا سيدي راني كوچرتا ايا وشيغيسا حالي مخاليف عمر كتمي قال عايو ونصوتا اينا هيستو baahida loo qabay in la helo habla heesa aad ayay u badnayd markii la weydiiyay heesta ay qaadi doontana laxanka raaxaya ee banaadiriga ay midhaha ku qaaday fanka casriga ah ee Soomaalida iyo Xaliimo isku sanadayay dhasheen 1943 ayuu Cabdisinimo iyo kooxdiisa balwa sababeen in fanka Soomaalidu qaato qaab cusub isla gugaayeen Khaliif Cumar iyo xaaskiisa Madiino dabay u dabaaldegeen in aynan ku soo biirtay qoyskooda balad weyna degan iyagoo aan waxba ka ogeyn halka aynan taayiri gaarsiin doonto fanka sinimo iyo kooxdiisu maanta boorama ku yabayaan isla sanadka ay magool dhalatay waxa wada markii koowaad laga dhageystay raadiyowgii u horeeyay af Soomaali ku hadla raadiyo Hargeysa oo markaa ahaa raadiyo kudo raadiyowgani inuu in badan marti gelin doono inanta ku dhalatay dhowrka kun ee kiiloomitir meesha u jirta cidina may ogeyn maalintii ay goosatay in ay dhiibtay istiqaalada shaqadii shaashubida ee ay ka haysay maqaaxida gaalkacayo ayay Xaliimo qaaday jidka aan weligii qalloocsameyn ee ay u martay fanka Soomaalida socodka ay Hargeysa ku timay ay tartanka ku gashay kuna soo baxday ay midhiisa gurteen jiilasha fanka Soomaalida xiiseeya ee ka dambeeyay oo dhame maadaama dadka lagu dhex faafiyay in diintu aanay ogoleen gabadh heesta oo ceeb iyo caasinimo loo arkayay Xaliimo magac tobal caaraha loo sameeyay ayaa qasab noqotay sida hablaha kaleba loogu yeeli jiray bal xasuuso maandee guduudo baxsan iyo iftiinba Cabdi Ayuub oo waagaagaasima ka ah raadiyo Hargeysa ayaa ku dhawaaqay abaalmarin u taal cidii magac u soo bixisa fanaanadan cusub Yuusuf Xaaji Aadan Qabile eriyadan uu ku curiyay codkii markaa kaliya ahaa ee uu ka maqlay Xaliimo ayuu ku mutaystay inuu ku guuleysto 300 oo shilin oo miiska saarna man usaaray may aroriya iyo mooday magool kaliile sidaas ay Xaliimo ku heshay shaqo cusub iyo magac cusub magool bartan ayay isku baranayaan fanka iyo magool sidaas ay Xaliimo ku heshay shaqo cusub iyo magac cusub bartan ayay isku baranayaan fanka iyo magool saameynteeda nusqarniga soo socdaana wuxuu geeysiinayaa in ay fanka ka dhigto mid magoolay oo tahay saaxiibayaal maqaalko aad u dheer awadeed waxaan idin sameyn doonaa playlist aan ugu magac daray fan magoolay kaasoo aan soo jajabin doono maqaalka sheerkaasina aan ka dhigi doono dhowr qaybood oo kala dambeeya waa tahay saaxiibayaal intaaynu muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh